trig ayris bay qabtaa maxaa ku soo galiya qof kasta oo xitaa iyaga u soo gali jiray habla social ay haayeen habla bulshada bay haayeen marka laygu arko gurigooda waa laga tagi jiray xitaa caruur ay dow tahay oo rajo iyo agoona waxay ku dhahan xitaa maxaa anagu ma baydii soo gali karnaba sababta ma taqaanaa ay dhahan trig ay idin joogto trigna waa qof cudur qabta anaguna qof inuu cudur naqla qaadsiyo ma rabno laakiin waxaan dhahay markaas aan fiiriyay saasay ahayd laakiin waa ku cusba cidnayga ma aqoonin dad waalidkay oo yacniga aanu wax isu nahay oo ilqaatiyada anaga cida galay dhalay oo wax isku nahay haduu cudur qabo ma faraxsana sooma wax badan laga dareemi karaa qofka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta waa idin salaam meel buu joogtiin iyo marba muuqaalkan ku soo gaara xil buu ku taa wanaagsan haduu maalin ku soo gaara maalin wanaagsan haduu habeen ku soo gaara habeen wanaagsan hadii taa markuu ku muuqaalkayga aad daawatid waxaan ka codsanaa page-ka inaad follow iso dhaadid sidoo kale YouTube ku subscribe saartid waxaan sameynaynaa barnaamijkeeni ahay qiso qaybtiisii shanaad waxaana la joogo qof dumar oo rabo barnaamijka inuu ka qayb galo soo dhawow hadhowahay walaalo macaan magacaagu saddexan Trig Axmed Ibrahim Trig waxa ay sheegtaa qisada kugu dhacday oo maanta aragtida nala wadaagtid qisas ay waaye qisada aniga igu dhacday waxa weeyaan qisa markan aniga yacniga ilaa hadda ka murugoodo wiil Soomaaliyeed ay ku sameeyay marka xusuustana cawaya ayaan waxay igu tahay yacniga nabar ay igu tahay mana ilaawi doono inkastoo aan qofkii macnaa igu sameeyay intii qaaday ee wadayba aan saamaxay haddana yacniga nabarka waxa la yiri yeelaa wuu ilaawaa laakiin la yeelaa ma ilaawo nabarka wali wuu igu yaalaa marka qisada igu dhacday waxay ahayd waxaan joogay Hargeyso xaafad la dhaho Masallaha aniga inaan saaxiib nahaan ahayn meherad baan ka furnay meherada way iga xirantay ka bacdi waxaan noqday qof iska shaqaysato xoogeeda maasha guri ay karaysnaa qisada igu dhacday waxay ahayd inaa macnaa wiil Soomaaliyeed uu been faafiyay oo ahayd qoftan ayris qabtaa macnaa qof uu ka faafiyay war qoftan ayris qabtaa marka xaafada aan deganahay dad Suuda yaqaan degan oo macnaha ilaa tan iyo xilligii siyaad barre meesha ku dhashay oo ku koray markii hore meesha goofo sida camal goofo oo kale ay ahayd marka hadda magaaladu soo gaadhay marka dadka degan meesha ilaa daan way yaqaanaan in is wada taqaano wax is dhalay wax is waalida wax is habaryara in is wada taqaano waa dad is bartay oo is dhex galay waa marka anigu dabardamaheeda marka dhinacaasan deganaa ka bacdi dhinacana soo guuray maama marka habaryar igu toosan ayaan la deganahay laakiin aan habaryar yahayn askin habaryar igu toosan marka maamada markaan la soo degay dadku way soo galaan waa ka baxaan gabadhan Saara la dhahaa marka iyada waa loo sheegay yacni laakiin anigu sheekada ma ogi sheekada macnaa la igu saarayay iyo waxa la caydinayay waxay dadku iifiyaan ma ogi marka waxaan saaxiib lahay laba hablood oo maanta hadii la dhihi lahaa wallahi nafta u bedel waana u bedeli karayna waa u bedeli lahaa laakiin yacni dad bilaadantinimada wax ka yaqaana oo yacni mas'uula oo ixtiraam qof kasta oo bilaadan oo hay'adu saqiir yahay haduu ciroole yahay ay ahayn marka hablaha jaaranahay isuma dhawin xoogaya kala fognahay waa untaga marka aniga sabateera ahay guriga yahay cunto ma karsado qalabka cuntada lagu karsado ma bay yaal marka qadada way wacaan quraacda way wacaan cashada way wacaan shaqada hadaan ka dago yacniga aan shaqayninba iyagaan dul saaranahay iyo hadii kalaba marka aan u galo waa laba hablood oo walaalaa way wada joogan mid aan reer kale markaan u galaba ayaan ka soo baxaba waa loo galaa markaan u galo cuntaan la cunayaa weelkii baan wax ku cunayaa shaaha cabaya waa baxaya maaha waa loo soo galayaa waxa la leeyahay alla qoftii ayriska qabtaa hiblaayo ku soo gashay maxay tolay taadi waxaan yacniga weelka tuur shay kasta waa laga tuurayaa iska daadiya la leeyahay shaygeeda soo qaadanaysaa oo iska dhaqanaysaa oo dhiganaysaa aniga afartii qof
marka aan ku soo baxo markaan salaamo dadkii faraxsanaan jiray islaam jiray markaan salaamo wala kala dhaqaaqaya macnaha xitaa iyadoo salaanta laga qaaday salaantu geedaha xitaa ku waajibtay soo صح سلام اسلام salaanta islaamka geedaha ku waajibtay in xitaa geedaha salaanto marka qofka markaan salaamo cudurkaygu salaanta kuma gaarayo xitaa haddaan qabo qofna cudurka ma gato صح marka qofka markaan salaamo dadka markaan salaamo way kala dhaqaaqaan صح dad badan oo meel taagan markaan dhaafo kulli waa la soo jaleecaa waa la fiiriyaa صح marka anigoo yaaban oo isla hadlaaya saaxiibadina si aan wax ugu sheegay garan la ee maalintii dambe in saaxiibada anigu murugeysanay aragtay waxa ka qaldan dhahay nima waan yaabanahan dhahay waxa kugu dhacay dadkii ii faraxsanaan jiray dadkii islaami jiray dadku hadii mas'uuliyiin hadii dad waaweyn yihiin hadii ciyaal yihiin hadii dhalinyaro yihiin anu qof iska kaftan badan iska dacaayad badan ayaan ahay qof walbana iska la qabsataa marka qof kasta markaan salaamo ayga kala yaacaan inta waxaan ku dhahay niyo saasay jirta walaal dadka waxay iiga yaacayaan iyo dadku waxay iiga kala dhaqaaqayaan ma garanayo laakiin yacniga waxaan dareemayaa inay wax jiraan inta waxay igu tiri walaal haddii waxa jira aan kuu sheego miyaad i odhanaysaa qofkii kugu yidhi iigee qofaan aad u jeclayna waaye ilaahay dembigeeda iyo dembigii waalidkeed iyo keedaba ha dhaafo jannadana ilaahay ugu bishaareeyo qofaan aad u jeclay ahayd waxaan ku dhimaya walaalo waxa jira haddaad ii sheegto adigoo walaashaya adiga madaxaaga madax kale ma sii dul saaraayo yacniga ma odhanayo yacniga wixii iga dabagee waxay tiniga saasaa jirta aniga qof kastoo ii soo gala markaad iga baxdo waa lay soo galaabay tirjaarkoo dhan baa ii soo gala xitaa xaafadaas aan markaa deganahay ragga jooga xitaa dadkay xantaan oo yacniga dee xanta waxaa lagu yaqaana dumaraa lagu yaqaana laakiin ragga laguma yaqaano ragga wixii yacniga dumarka shaqadooda inay ka dhex baxaan baa qurux badan sooma xaafadda markaasaan deganahay raggu xitaa waxbay xantaan marka waxaan idhi walaal maxaa jiro waxay tiri walaal saas iyo saasaa la yidhi macnaha trig ayris bay qabtaa maxaa kuu soo geliya qof kasta oo xitaa iyaga u soo geli jiray habla shooshalay ahaayeen habla bulsho abay ahaayeen marka laygu arko gurigooda waa laga tegi jiray xitaa caruuray dow tahay oo rajo iyo agoona waxay ku dhaheen xitaa maxaa anagu maba idii soo geli karnaba sababta ma taqaanaa ay dhaheen triga idinla joogto trigna waa qof cudur qabta annaguna qof inuu cudur naqla qaadsiiyo ma rabno marka waxbayn hadalka ugu daalin waxaa dhacday inantii waxaan ku iri walaal ma saas ahaa walaashay baa taan dhahay wixii maanta aad igu tiraahdana waan samaynayaa waxaanan jecelahay inaan adiga dartaa caafimaad u maro waxay tiri waan ogolahay dhakhtar ii wacday dhakhtar markay ii wacday waa ii ballamisay 7 cisho ka bacdi imaaduna dhahay sabti ahayd xilliga ii sheegaysay sabtideedii ayaana la ballamiyey sabtideedii markaana la ballamiyey shaqaan tegi jiray shaqada markaan tago anoo ooyayaan shaqayn jiray markaan ka imaado habeenkii 7 habeen ee aanan caafimaadka soo marin ee aan dadkiina aan arkayay yacniga dee inuu qof waliba ihiifaayo si aan lay ogeyn inaan caafimaad u socdo inaan lagu sheekada ogahay aan ogaaday aan lay ogeyn 7 habeen halkaas xitaa way goday 7 habeen buu ooyay barkinta intaan saa u qabsadan ku ooyay laakiin hadda markaa xasuusto markaas iyo hadda markaa xasuusto hadda iga xanuun badan sababta marka waxaan sameyn jiray maxaa dadkan kugu sameynayaan maxay dadkan kugu sheeganayaan maxaa dadkan ka hadlaysay maxaa dadkan kugu diray maxaa yacniga qofka miskiinta ah ee banaanka iska deganay aan cid waxba ku darsanin baa tahay qofka dadteeda iska taqaan shaqadeeda iska wadataa tahay qof bili aadan oo yacniga aad dhibtaa ma jiro sababta weligay qof kamaan oohin weligay qofna barkumaan dhufan oo kamaan dhiijin weligay qof intuu wacay layma odhan hadal heblaayo hebel ku cadee heblaayo ku cadee weligay qof dabadiisa kama xantamin oo yacniga wax kamaan sheegin maana dhahin qofka hebel waa sidaas hadduu xitaa wax samaynayo hadduu xanuunsanayo iyo hadduu bukayo hadduu bad qabatoona marka
habeen 7 habeen ee aanan caafimaad ka marin 7 habeen buu ooyay noloshayda markaas qisadaas ay igu xanuun kulay meelaha 7 habeen baartaankii waan tagay alxamdulillah marka meesha galay walay baaray caafimaadkayga la fiiriyay caafimaadkayga markii la fiiriyay qoftan ma xanuunsanaysaa la dhahay waxa qabtana ma laha dhaqaatiirta dhan baa isku kay timi waxa la dhahay waxa lagu sameeyaa inaad yacniga maxay tolay lagu raaciyo askar qofkii kugu yiri hadii aad garanaysaa ama beentaas ka faafiyo ama qof hal mar xitaa kugu dhahay ama kugu xantay hadaad garanayso waa lagu soo xidhayaa laakiin waxaan dhahay markaas aan fiiriyay dadka qofka bilaadanka hadduu xabsi ku maray iyo hadduu lagaaga dhiijiyo toona wuxuu ku taraya malaha laakiin wax kasta ilaahay ayaa ka weyn soo xabsiga ilaahay wax ka weyn ma jiro marka ilaahay aan ku ballamiyay waan iskaga haray guriga oo aan ka tagnay oo hablaha saaxiibadan ahay ay raacay mid daantaan marka hore ka soo guuray degantay waa ka dan xaafadda masalaha la dhahaa daanbar iyo daangalbeed la dhahaa cidii taqaano waana in is wada taqaano daanbar iyo daangalbeed imaka xamar xaafadda marka degantay xaafadda kale cid ku ka siisa malaha Soomaa gurigan ka soo horjeedo waxa laga yaabaa qof ku jira inaad aqoonin laakiin xaafad 8 kiiloomitir amala qof ka soo baxba hada taqaano ka waran iyo siqiirka u dhashayba xaafaddan marka aan degan haysaas ahayd laakiin waa ku cusbaa cidnayga ma aqoonin dad waalidkay oo yacniga aanu wax isu nahay oo ilbaatiyada anaga ciidagal ay dhalay oo wax isku nahay ba jaarar lahaa laakiin xitaa dadkaas marka dadku kula koraan ayaa istaqaaniin oo isu gashaan oo wax wada cun yeelataan oo yacniga isu tagtiin Soomaa dadkaas xitaa waxa kaaga roonaanay dadka aad bilaadantinimo u baratay okay waxaan imi marka xaafadaas inaan ka watay daanta galbeedka inaan ka watay daanta barigana inaan walaashay aan ku sheegay hablaha aan jecelahay ee iga raacday ee waday bay dhakhtarkaygiis marka dhakhtarka marka ka nimaadnay ee aan ku dhahay ilaahay aan ku reebay waraaq caafimaad aan wataa Soomaa ana waxba qabin xaafadda marka waxaan imi ayadoo aad mooday inay geeri ka dhacday ama sab lagu qabo dadka macnaha sidii u taagan yihiin labada hablood ay raacay mid telefoonkeedu way ka tagtay mid telefoon wadatay ina macnaha xildhibaan la dooranayo camal ayaa loo soo wacay maxaa la dhahay maxaa la yiri sidee tiri ma bad qabtaa soo qabtaa miyay sidaa miyaa la markan xaafadda imina waxaanu iyagoo macnaha sida u tuban ariga markan xaafadda arkay sida loo tuban yahay waxaan dadka ii malaynaya inaan cudur qabo in yar baan moodayo waxaan oo xaafadda ka soo baxay oo dhammi ii malaynaya inaan cudur ka qabo marka qof waliba shaydaanka iska naar madaxayga taabta laakiin xilligii leelaha way xanuunsan tahay qof shaydaanka iska naariyo walaalaysaana tahay qof waliba wiiga cararay waan iga fakanay cidii inta dheer leeg baan lahaa sababta ma taqaan iska xaragoonaay qof kaligeed meel iska degananaha waan is cadeynay naag cado buuranaha sidan caato uma ahayn naag marka dawada bilowday baan ahaa ismaan lahayn waxaan oo kala yacniga kugu dhacaaya naag iska labisataan ahaa yacniga dadkan markay ileeyihiin iska maxay tolay raali noqo waxa wixii ka faafi kulligood way wada faafinayeen marka qaarkood waxay dhaheen cafisaan ka dalbanayna maadaama ku xamanay nacafi waan ku xamanay saasaan niri nacafi maama xitaa aan isku fiicnayn oo aan u maleynay ka filanaynin yacniga xitaa inaan habarirto hayo aan saaxiib lahay way iga reebtay macnaha ka haray dhahday qoftan cudur ay qabtaa iyana way maqashay sababta waa hooyadeed habarta waa hooyada naasla way maqashay waana itaqaanidina cudur qabin oo wax wada cun leenahay oo aan yacni qofku haduu cudur qabo ma faraxsana Soomaa wax badan laga dareemi karaa qofka marka waxbeen hadalka ugu daalin sheekada aniga igu dhacay saasay ahayd maxay ahayd tolay alxamdulillah laakiin ilaahay ma hada ka gaadho xaafadii waa layga ogaaday inaan waxba qabin dadkii yacniga iyasi jiray dadkii yacniga markaan xitaa salaamay islaanta aniga qaadi jirin ninkii xitaa beenta iga sheegay xitaa hadib inuu ila heshiiyo ayuu isku dayi jiray laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin adduunka qof walba qiso u gaaro uu leeyahay laakiin ninkii qisada igu dhacday taas ugu xanuun badan والله قصة ay sheegtay aad iyo aad aan ugu murugooday maadaama anaka sameeyna barnaamij loo afi walaalka ama walaasha barnaamij isku afiyaan dadka wax kala tabanayo macquul ma tahay dadkaas inay afisid والله dhamaantood waan ka saaray urka
laakiin xanuun waxay ugu yacniga qof bilaadan oo walaalkaaya oo kaligiisa xitaa qofku markuu haysto garab uu ku ooyo ama qof waalidkiisa uu la degan yahay ama yacniga waxyaabaha qaarkood waxaan aniga iga suurtoobin qofka igu sameeyo yacniga inaan ilaawo aad ay igu adag tahay laakiin alxamdulilah waan cafiyey waan cafiyey haddii aan la socotay ilaa dhammaadka muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad beejka Flow soo dhahdid naguna soo biirtid